مدن مدحوينه وحاطاي مدحوينه ugu horeeyay ee gaadiid intaas leeg oo kan hadda aad soo aragtay ee hortaada taagan ciidanka booliska u keena muddadii uu jiray qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaadiidkan oo mudan madaxweyne wax weyn ka tari doona hawlaha nabadgelyada ee ciidanka booliisku qaranka u hayaan iyadoo ay ciidanka booliisku hore u adeegsan jireen gaadiid u badan duug oo xaajeedo badana waxa talaabadani ka mid tahay tayeynta iyo qalabaynta ciidanka booliiska ku horumarinayso waana ku maadsan tahay mudan madaxweyne mudan madaxweyne waxa kale oo xusud mudan dhismaha gaboobay ee meesha laga dumiyay xarunta taliska guud ee imaka aad kormeerka ku soo martay waxa la dhisay sanadkii 1936 ayay dawladda Ingiriisku dhistay waxa noqotay madaxweynihii ugu horeeyay ee ku guuleysta in uu waxa galo oo u dhabar adaygo oo meelo dariiqo badan mara aakhirkiina waxa hadda ka socda dhismo casri ah oo aad indhahaaga ku soo aragtay halka uu maanta marayo adigoo horena u dhagax dhigay 20kii bishii koobaad ee 2016 mudane madaxweyne waxa dhismahan cusub maalgelisay hay'adda David ee dawladda UK waxaana fulinaysa UNOPS waxaana dhisaysa shirkad Somaliland oo la yiraahdo Taliyaha mudane madaxweyne sida halkan indhaha ku arkasay ciidamadan gaadiidkan cusub ku qalabaysnaa ciidanka booliisku saraakiil iyo ciidamada kale waxay si joogto ah u qaataan tababaro iyadoo hadda aad arkaysay xubno cusub oo dhibooya oo halkan lagu gaarsiinayay waxaana soo qaateen tababaro kala duwan oo shaqada ciidanka booliiska la xidhiidha taasi waxay keentay in macallimiinta ciidanka booliisku maanta tababaro siiyaan ciidamada kala duwan ee amniga waxaana dhawaan noo qorshaysan in kuuriyad cusub oo saraakiisha ciidanka booliisku yeelan doonaan laga dhisi doono magaalada Hargeysa taasoo ay maalgelinayso dawladda UK hadii Ilaahay yiraahdo mudane madaxweyne waxaan halkan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan ballan qaadaynaa in mudane madaxweyne aanu hawsha qaranka aanu hayno aanu si dardar gelino maadaama aad hore noo garab taagnayd imikana garabgalkii ugu weynaa ugu cusbaa inta Somaliland jirtay oo gaadiidka quruxda badan oo wax weyn nabadgelyada ka qaban doona aad nagu qalabaysay oo nagu tayeysay iyadoo horena u jireen qalabo ay ka mid yihiin kuwa rabshadaha oo aad iibisay marka laga reebo kuwa ay dawladda UK ina siisay waxaan ballan qaadanaa inaanu heegan u noqono hawsha qaranka iyo bulshada reer Somaliland aanu midnahay waxaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinayaa shacabweynaha reer Somaliland ee nala shaqeeya sida wanaagsan oo gacan siiya mar kasta oo ay hawlo yimaadaan aad iyo aad baan amaanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.